kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal mar kastoo aad dunida daclada ka joogtaan halkan waa Rugta TV waa mar kaliya barnaamijkeeni arrimaha bulshada iyo fanka oo aan ku soo qaadan doono fanaanada caanka ah Rasmi Reis. Fanaanada caanka ah Rasmi Reis ayaa ka hadashay muuqaalo dhawaan la soo galiyay baraha bulshada oo lagu sheegay inay kala tageen ninkeeda Farxaan. Sidoo kale fanaanada ayaa maalmihii ugu dambeysay waxyaabaha baraha bulshada aadka lagu hadalhayay ahaa in odaygeeda Farxaan ay kala tageen. hase haatee fanaanada oo cod soo duubtay ayaa waxay sheegtay in gebi ahaan waxaasi aanay waxba ka jirin, waxaana sheegtay in runtii ay maamooyinkeeda soo garaaceen oo ay weydiiyeen waxyaabaha khaldan iyo waxa jira ee dhabta ah. waxaana tiri runtii aad ayaan uga xumahay waxyaabaha baraha bulshada lagu faafiyey gaar ahaan YouTube-ka la soo geliyey. fanaanada oo aad codkeeda looga dareemayo inay ka xun tahay hadallada lagaga been abuurtay ayaa waxay u muuqataa in fanaanadu ay runtii aad uga cadhootay waxyaabaha social media la soo geliyey ee ah in fanaanadu gebi ahaanba ay odaygeedii kala tageen Farxaan. dhawaan u baahayd markii odaygeeda Farxaan ay isguursadeen fanaanada caanka ah Rasmi Reis, waxaana ku kulmeen magaalada Nairobi isaga oo wiilka ka soo kicitamay magaalada Hargeysa si uu gabadha xaaskiisa u tago oo uu u soo ogaado. fanaanada caanka ah ayaa waxay sheegtay in odaygeedu aad isku jecel yihiin naftana ay u hibeysay. hase ahaatee dadka warxumo tashiilka ah ee baraha bulshada ku soo qoraya Farxaan iyo Rasmi Reis waa ay kala tageen. runtii waxaan leeyahay waxba kama jiraan oo waxaan leeyahay iska daaya wararka kutirikuteenta ah ee baraha bulshada aad ku faafinaysaan. fanaanada Rasmi Reis ayaa waxay u muuqataa in ay soo gashay saaxadda dadka fanaaniinta dhawaanahan lagu hadalhaynta badan yahay, iyadoo aan ogeyn in fanaaniinta caanka ah ee ugu horeeya fanaanka caanka ah ee Qamar Sugaan iyo xaaskiisa ay baraha bulshada dhawaanahan ay dhex wareegaysay, taas oo warar kutirikuteen ah laga faafiyey. hase haatee fanaanada caanka ah Rasmi Reis unbaa hadda waxay soo baxday kadib markii jacaylkeeda cusub ee Farxaan ay soo sheegtay oo ay soo bandhigtay, taas oo u muuqata in gebi ahaanba markii hore aan la ogeyn fanaanada in ay xaas lahayd iyo inay jacayl lahayd. fanaanada ayaa caddaysay in odaygeeda Farxaan ay runtii aad isku jecel yihiin noloshana ay la wadaagayso, waxaana sheegtay in dadka ku mashquula odaygeeda Farxaan iyo iyadaba in gebi ahaanba ay runta u sheegayso oo ay leedahay aniga odaygayga waan jecelahay. hase haatee fanaaniinta ayaa waxay dhibanaan u noqdaan markasta in baraha bulshada lagaga faafiyo sawirro iyo muuqaalo been abuur ah, taas oo inta badan ay dhibsadaan. hase haatee fanaaniintu waxay u noqdeen kuwo dulqaad badan oo markasta ka soo hadla, waxaanay fanaanadani Rasmi Reis ku jirtaa fanaaniinta runtii marka wax laga sheego soo hadla oo baraha bulshada wax kula wadaaga asxaabteeda. waxaanay fanaanadu sheegtay in faamilkeedu ay aad uga cadhoodeen hadallada kutirikuteenta ah iyo muuqaalada been abuurka ah ee lagu faafiyey baraha bulshada.